رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا. su-aasha 13 ee kamida kuwa ugu faafitaanka badan aniga ra'yigayga waa muxuu islaamku uga xaaraantinimeeyay muslimiinta cunitaanka hilibka doofaarka? jawaabta su-aashaasi waa qur-aanku wuxuu ku leeyahay waxaan ka yareen 4 meel suuratul baqara suurada 2 aayada 173 suuratul maa'ida suurada 5 aayada 3 suuratul an'am suurada 6 aayada 105 iyo suuratul nahl suurada 16 aayada 115 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. waxaa la idinka xaaraantinimeeyay baqtiga iyo dhiigga iyo hilibka doofaarka iyo wixii lagu gowracay waxaan ahayn magaca haddaba sidaa awgeed qur-aanku wuxuu ku sheegayaa waxaan ka yareen 4 meel oo kala duwan in cunitaanka hilibka doofaarku tahay xaaraan. qur-aanka ayaa sidaa oranaya muslimkuna wuu rumeynaya xaaraantinimeyntan xitaa waxaa lagu sheegay kutubta muqadaska yahuudda iyo kirishhtaankaba. waxaa lagu sheegay sifru laawiyiin chapterka 11 aayada 7 iyo 8 oo doofaarkana ha cunina maxaa yeelay isaga raafkiisa waa kala jeexan yahay oo qanjaafiluu leeyahay laakiin sacalya naqsiga ma raamsado sidaa daraadeed isagu waa idinka nijaas. haddaba kuwaas hilibkooda waa inaydaan cunin oo baqtigoodana waa inaydaan taaban. taa macnaheedu waa baybalku inuu sheegayo cunitaanka hilibka doofaarka inay tahay xaaraan xitaa taabashadiisu tahay xaaraan. isla sidaa oo kale waxaa ku soo aroray sifru tathniya chapterka 14 aayada 8 oo doofaarkana ha cunina maxaa yeelay isaga raafkiisa waa kala jeexan yahay oo qanjaafiluu leeyahay laakiin sacalya naqsiga ma raamsado sidaa daraadeed isagu waa idinka nijaas. sidoo kale waxaa lagu sheegay sifru ashciya chapterka 65 aayada 2 ilaa 5 waxaa waajiba inaadan cunin hilibka doofaarka. sidaa darteed iyadoo la waafaqayo kutubta kirishtaanka iyo kuwa yahuudda cunitaanka hilibka doofaarka waa xaaraan. haddaad akhriso kutubta hinduuga xitaa kutubta hinduuga way xaaraantinimeynaysaa cunitaanka hilibka doofaarka. waxaa lagu sheegay manusmirti shakhsiga abrahamiga ah yacni waxay ka wadan qofka wanaagsan waxaa ku waajiba inuusan cunin kooga ama basasha ama doofaarka. intaa waxaa dheer fishno shooter ah qof kastoo iibinaya hilibka xaaraanta ah yacni hilibka doofaarka waxaa waajiba in si isdhaafa loo jaro gacmihiisa iyo lugihiisaba. waa ciqaab qur-aanka iyo xadiidkuba ma sheegin balse oo kutubta hinduuga labada gacmood baa la goynayaa haddaad iibinayso hilibka doofaarka. haddana aan taxliilino waa maxay sababaha caqliyeysan marka la waafajiyo kutubta muqadaska kirishtaanatiga judaismka hinduismka iyo weliba islaamka. si cad waxaa loogu sheegay kutubtaasi in cunitaanka hilibka doofaarku yahay xaaraan. haddana inoo daaya aan taxliilino waa maxay sababaha caqliyeysan ee cilmiyeysan ee loo xaaraantinimeeyay cunitaanka hilibka doofaarka. sayniska caafimaadka maanta wuxuu noo sheegayaa in qof kastoo cuna hilibka doofaarka waxaa jira fursado badan oo qofkaasi uu ku qaadi karo waxaan ka yareen 70 cudur oo kala duwan bigworm romworm dudatul inclostoma iyo wixii lamid ah cudurro aad u badan. cudurka ugu khatarsan ee laga qaado cunitaanka hilibka doofaarka waa waxaa loo yaqaanaa tinea soliumkaasi magaca cudurkaasi halku dhig ahaan dadku waxay u yaqaanaan waxayna ku dhex sugan tahay mindhicirada aaday u dheer tahay waa ukumo ama ukumo yaryar oo raacaya meelaha dhiigu maraan oo idil waxaa u suurtagala inay galaan dhammaan qaybaha jirka. haddii ay gasho maskaxda waxaa suurtagala inay dhumiso xasuusta. hadday indhaha gashona waxaa suurtagala inay indhala-aan keento. hadday wadnaha tagtana wuu istaagi karaa. haddii ay beerka tagtana waa idili kartaa. waxaa u suurtagala inay ku sababto dhibaato kasta qaybaha kala duwan ee jirka. isla waqtigaasi aad ka sheeganayso tinea soliumkaasi waqtigii falgalku waa uu sii dhammaanaya. cudurka kale ee halista ah ee laga qaadayo marka la cuno hilibka doofaarka waa trichuriasis. waxyaabaha qaldan ee aadka u faafay waxa weeye in haddii loo kariyo hilibka doofaarka si wanaagsan in bakteeriyadaasi ama cudurkaasi dhimanayso. cilmi baaris lagu sameeyay wax ka badan 25% dadka kamid ah kuwaasi oo ka sheeganayay waxa loo yaqaano aduudatu shicriya 22% kamid ah iyaga hilibka doofaarka si wanaagsan bay u kariyaan. macnaheedu waxa weeye cuntada aad gurigaada ku karsanayso kulaylka dabiiciga ah ee ay gaari karto ma u suurtagelinayo inay disho jaraasiimta iyo bakteeriyada iyo ukumaha yaryar ee laga dhex helayo hilibka doofaarka. waxaa jira sababo kale oo kala duwan oo qofka ku keenaysa inuusan cunin hilibka doofaarka. maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa in hilibka doofaarka uu ka kooban yahay qaybo badan oo duhuun iyo xeer ah iyo qaybo aad u yar oo kamida maadooyinka xubnaha qofka dhisa. isla sababta maadooyinkaasi ka samaysan xeyrta waxaa jira suurtagal weyn oo qofka ku asiibi kara cudurradan dhiigo kor u kaca kolestaroolka iyo xinjir wadnaha fariisata. waa isla sababtaasi ay uga sheeganayaan wax ka badan 50% dadka reer Mareykan dhiig karka maxaa yeelay badankoodu waxay cunaan hilibka doofaarka.
waxaa macruufa oo la iska og yahay in doofaarku yahay xayawaanka ugu wasaqda badan xayawaanada laga helo dhulka korkiisa. meel kastood ku aragto saalo iyo wasaq, halkaasi doofaar ayaad ka helaysaa. waa xayawaanka ugu qurunka iyo wasaqda badan. dadka qaar ku doodaya waxaa jira wadamada qaar sida Australia doofaarada aaday u tarbiyayaan, si wanaagsan bay u dhaqaaleeyaan, caafimaadkooda ka fakaraan. waxaan u sheegayaa xitaa halkaas hadday jirto Australia xerada doofaarada qaarkood qaarka kale hal xero la isla geliyaa. ma ogtahay in doofaaradu markay saaloodaan ay saaladooda cunaan? sidaa darteed ma haysataan rag u taagan 24 saac inay doofaaradaas ilaaliyaan si ay saxaradooda u qaadaan mar kastoo saalood. ma haysatiin. sidaa darteed xitaa Australia doofaaradu aad u wasaq badan. waa xayawaanada ugu wasaqda badan. sabab kale oo dheeraad ah haddaan ku fakaro oo kamid ah sababyadaasi aan sheegay waa saynisku maanta wuxuu noo sheegayaa in doofaarku yahay mid kamid ah xayawaanada ugu saqajaansan ee ugu falfalka xun ee adduunka laga helo. waa xayawaanka kaliya ee u yeeraya saaxiibadiisa si uu u tusiyo inuu lamaantiisa la tacaamulayo. markuu lamaantiisa la tacaamulayo saaxiibadiisu u yeerayaa si ay u arkaan waxaasi uu sameynayo. waad ogtiin hadda Mareykanka bulshadaasi hormartay waxaa jira xaflado qoobka ciyaar. marka xafladaasi dhamaato xaasaska la isdhaafsanaya. xaaskayga la seexo anna taadaan la seexanaya. haddaad hilibka doofaarka cuntay sida doofaarada kala dhaqmaysaa. رمضان قد أهله بالصيام وأطله مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.